بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan salaamayna shacabka reer Soomaaliland meel kasta joogaanba halkan waxaan ku qabanaa caawa shir jiray oo ah garxadka UK waxaanu ambaareynaa ama wase aan ka hadlaynaa dulmiga ciidamada Soomaaliland ee maamulka Muuse ay ku hayaan gobolada bariga oo arrinkoodu uu noqday in reerihii wada deganaa qaarna la hubeeyo qaarna la yiraahdo inta la hubeeyo kuwa kale ku duula ay halka gacsaawo isugu yimid dareenkiisana ku cabiraya taageerana u muujinaya in ay ka soo horjeedaan xaqdarrada ka taagan Soomaaliland waxa ku soo dhaweynaya afayeenka guddiga garxadkiisa UK mudane Maxamed Cabdillah arrimaha ka taagan maanta bariga Soomaaliland ee gobolada Sanaag waa arrin ka baxsan nidaamka dowladnimada luqadda lagu isticmaalayo ficilka lagu isticmaalayo intuba waxa ay ka soo horjeedaan nidaamka wax wada lahaanshaha iyo dowladnimada waxaa runtii dee wada hadalka halkan ka baxay iyo go-aamadii kasoo baxay guddigu runtii way tilmaameen isagoo qodob ah uun baan in yar kor marayaa shirkan runtii waxaa aada loogaga hadlay bareerka iyo bareeraha dowladda ama dowlad ku-sheegta Somaliland gaar ahaan madaxweynaha ninka ah sida uu ugu bareeray uu u qaatay taariikhdiisii hore mid la mida oo horey uu u yidhi anigoo wax dili kara duco qaadan maayo waxaa loo fahmay khudbadiisii ugu dambeysay inay kelmado kale uu isticmaalay ee uu reerka dagaal u dhigleergaray baa loo fahmay oo shirkan go-aanka ka soo baxay wuxuu ahaa muuse dagaal buu iclaamiyey waxaa la qaatay in la isdaafaco ayaa shirkan lagu qaatay oo la taageero dulmidiidka iyo in dulmiga la diido oo la isdaafaco baa la qaatay waxaa la go-aansaday in baaq loo diro beelaha Somaliland ee bareerka u daawanaya in beel ciidankii Somaliland lagu weerarayo maatadoodii iyo xoolahoodii iyo dhulkoodii in ciidankii Somaliland beel lagu weerarayo in loo diro baaq la yidhaahdo ciidanka dadka ligaga jira sabab ay lagu weeraraan ma jirto dowladii meeshan kama jirta ee waxa weeyaan waa dulmigii 94kii baa la soo celiyey nagala noqda oo la hadla oo baaqa u dira ciidamadiina oo yaanay ka qayb qaadan weerarkaa dadka gaarkaa lagu hadiyo in baaqaa loo diro beelaha Somaliland dhammaantood ayaa la qaatay waxaa la go-aansaday in ciidankana halkan baaq looga diro oo la yidhaahdo ciidanka Somaliland ee aan taageersanayn in reer gaara la xasuuqo sababtay ciidan waxaayna aanay ahayn inay reer duulimaad ku yihiin in ay ka baxaan oo aanay ka qayb qaadan dulmiga iyo weerarka reer gaara lagu hayo ee la iclaamiyey inaanay ka qayb qaadanin sidii saraakiishii reer Sanaag ee diiday markii la yidhi weerara magaaladiina inay yidhaahdaan annagu shacab iyo magaalooyin weerarkeeda ka qayb qaadan mayna inay yidhaahdaan oo aanay ka qayb qaadanin oo ciidanka Somalilandna baaqaa loo diro la yidhaahdo weerarka iyaga sabab a uga qayb qaadataan ma jirto meel walba ciidan Somaliland diidani gobol walba wuu joogaa sabab loo weeraro la yidhahdo caaraa ka baxay imisaa ciidanka Somaliland ka baxay oo jabhada ah imisaan weligoodba kusoo biirin oo Somaliland jooga in ciidanka qaranka la yidhaahdo caqliga lagu shaqaynayaa waa qabyaalad bareera oo reer lagu weeraraye sabab aan lagu gashaan ma jirte ilaahayna haddaad taqaanaan ka jooga cidda u bareersan reerkan ee weeraraysa iyo reerkan haysarka go-aamadaas ayaa runtii ka mid ahaa waxaa ka soo baxay oo difaaca ka mid ah in ashkato caalamiya iyo mudaharaadyo la abaabulo lagaga soo horjeedo xasuuqa ay qorsheeyeen madaxda Somaliland mudaharaadadaas iyo ashkatada caalamiga way bilaabmaysaa
tii hore ee 94kii ee la iska saamaxay ama aan cid lagu qaadinna maanta la isku qaadayaa maxkamada la isku soo saarayaa mar hadday raggii tii hore geystay maantana tii mid lamida doonayaan waxba la isula hari maayo shirkana waxa lagu go'aansaday in la isdaafaco intaas ayaan anigu kusoo gabagabeynayaa oo dee qodobadu ay ahaayeen waxa weeyaan beelaysu yimid beel walibana waxa weeyaan hubkeeda iyo ciidankeeda way haysataa dalkana haddii la wada yeelan waayo waa la kala yeelanayaa degaan waliba wuxuu yeelanayaa dhulkiisa odayaasha dhaqanka ee la diray loo diray nabadda ee dhinaca kalena laga hoosgelinayo ciidamada faraha badan ee lagu gurayo ee ku wareegsan nabad iyo colaadi meel mooda galaan ama madax dhaqameedka ha looga baxo iyagu ha soo afjaraan wixii khilaafay dowladda iyo ka dhexeeya iyo ciidankaa hubaysa oo ha laga qaado ciidankan faraha badan ee lagu soo ururiyey gobolka Sanaag taasi waxay muujinaysaa colaadii 94 inaad soo celinayso oo ku saabsanay markaad aragtaan inay garxaj soo qori haystaan ma iska caabin karaa inaan istiraadaan ka soo qaad oo shalay dhacday waayo askarta meesha joogtaa waa kuwii 94 colaadu ay muujinayaan waa colaadii 94 sidaa daraaddeed annaku haddaanu garxajsanahay across the globe dowlad walba iyo dal walba iyo international community-ga meel walba waa geynaynaa genocide-ka dadka reer baadiyaha ee ciidanka qaranku uu buuraha dushiisa ugu koray ee xoolaha iyo dadka iyo maatada ay ku laayeen ee loo aaba yeelin hubkii cashuurtooda lagu soo iibiyey lagu laayay maatadii cashuurta laga qaaday meel walba waa gelinaynaa cid walba waa u sheegaynaa geed dheer iyo geed gaaban baa adduunyada waa u gudbinaya dadka arrintaasi qusaysana waxaanu leenahay waxaa idinla gudbooyaa weliba waxaan gaar u dirayaa beesha garxajsida ceelaf way taagan waxaanu idinla ayiidsanay qodobadii ka soo baxay shirkii boqol aanu 100% idinku daba taaganay in la isdifaaco aanu idinku ayiidsanay muuseno fariin xaggan waxaan uga dirayaa muuse waxaa leeyahay muusow meeshu waa meeshii ragguna waa raggii cirka jeex soo dumi waxaa kaloonu ku daraynaa in ceelaf weyn laga soo xidhay odayaashii sharafta lahaa ee ahaa kuwii xadhigga u noqon lahaa haddii dhibaata timaado daweyn lahaa in la soo xidhay iyo xildhibaanaba waxaan u sheegaynaa maamulkan caadaystay inuu qofkii diida dulmiga xidho waxaa la isugu iman doonaa halka la wada degay waa la kala ahaan doonaa dalka ayaanu leenay labada beelood ee qaarna la hubaynayo leeyihiin maabtiyadii laayo qaarna ay soo hubaynayaanna xaqay tegi baanu leenay waxaanu leenahay ha isu taago cadaaladda dulmi ha samaynin laakiin cadaaladda isu taaga oo ha la isdifaaco wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu